أمور الدين ودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مدحوينها مرتدى لو يهي قلمدو أحمد غورغور صاحبada ida kale ee wada soconay martida oo ay isaga madaxweynayaasha koonfur galbeed Puntland iyo Hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa dhammaan reer galmudug baarlamaan iyo wasiirro iyo shacabba iyo inta kale ee martida ah ee la socotay madaxweynayaasha madaxda xildhibaanada ka socda labada aqal ee dowladda federaalka ah bulshada rayidka ah iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo madaxweyne axmed qoorqoor iyo maamulkiisa iyo ku-xigeenadiisa iyo reer galmudug sida aad iyo aad xushmadda iyo ixtiraamka u lahayd ee u soo dhoweeyeen wufuuddii u timid iyo nooca qabanqaabada shirkan oo aan isleeyahay iyadoo lalahaa war galmudug sidoo ay saaxiibaday sheegayeen wakhtiga aanu qabannay oo layidhi 7dii bisha 8 aan shirka qabanno madaxweynuhuna uu safar markaa ku jiray ma qabsoomi karaan iyo ma iman karaan ay u qaateen inay wakhtigaas qaabtaan iyo qof kastoo imanayo waftiyada ka mid ahay waxa uu filayay waxaan ahayn ee uu la soo kulmay. waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo aan idhaahdana galmudug maanta waxay ku taagan tahay waddo fiican ee dadnimo hore ku jirtay bay la soo wada baxeen maantana waxay ka muuqataa dhuusamareeb iyo reer galmudug soo dhoweynta marka laga soo taga haddana sida ay u diyaarsan yihiin iyo dowladnimada ay raadinayaan iyo qabanqaabada ay isugu wada yimaadeen ma koobi karo laakiin mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihi. intaa marka laga soo tago shirkaani muhiimadda uu lahaa waxaa ka hadlay saaxiibka martida loo yahay iyadoo aan filayo in mar walba yuusuf garaadna uu halkiisa dhaan wada ku darsanayey inuu yahay shir maanta qof waliba uu soo fiirinayo waxa laga filayaana uu yahay wax ay keentay xaaladda lagu jiraay inay sababtay filitaanka shirkan wax laga filayaay mid wakhtiga ku xigan inuu yahay. taariikhda ay Soomaaliya soo martay isma weydiinayno marxaladahay soo martay ee kala duwanaa laakiin waxaa hadda inoogu muhiimsan burburkii kadib Soomaaliya inay qaaday tallaabooyin horey loo qaadayo oo dowladnimada lagu soo ururinayay laga soo bilaabo Carta Bagaasi doorashadii 2012 Muqdisho 2016 Muqdisho marka lagu daro intii Jabuuti isku darkii faraha badnaa Soomaalidu ididiilo iyo amaal muujinaysay sida ay Soomaalidu ugu baahan tahay bal inay ka guurto dhibaatada iyo caqabadihii la filayay oo nooc dowladnimo ay u guuraani inay ahayd midda marxaladaha keenaysay oo damac siyaasadeed ku jiro uu ka fakaraya alleelehe hebel baa qaatay hadduu qaatay u daa afarta sanaan isdiyaarinayaan waxaa lagu gaadhay inta badan ee ku dhacaysana inay tahay wadatashi isla oggolaansho iyo dadku inay markaa waxay isla ogyihiin ay ku meel marayaan ay gaadhaan. waxaa hubaal ah oo meel looga wareega aan lahayn guddiga doorashooyinka ee maanta jira markii la dhisayey iyo markii ka horraysayba waxaa laga hadlayay hal qof iyo hal cod in la gaadho waa hamiga qofka Soomaaliyeed oo qof waliba ku fakarayo doorasho noocaasa inay dhacdo. haddana mar walba waxaa waaqaca runta sheegayey wadciga lagu jiro iyo xaaladda waddankeennu uu ku jiro oo u baahan inta taa la gaadhayo wax badanoo hore inay qabsoomaan inay mar walba caqabadaha ahayd looma fadhiisanayo markaa oo lama odhanayo waan gaadhi weynay sidan aan yeelay haddana waxay noqonaysay lafba sidii lagu waxayn karaa loo xagtaa sidii lagu badbaadin karayo ama see xeegana loo xagtaa ilkana ku nabadgalaano mar walba haddana isbeddelkii iyo damcii iyo amaashii inay socoto
inay tahay midda dowladnimada Soomaaliya aasaaska u lahayd 2016 markii laga hadlayay waxaa aad culayska loo saarayay inay dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod oo ogeydeen National Leaders Forumkii iyo talaabooyinka uu qaadayo wixii la sameeyay haddana way socon kari weyday oo waqtiga lagu jiray wadanka iyo xaaladii adkeyd waxay keentay inay taasi socon weyday waxaan rajaynayaa markaa ama maanta shirkan muhiimadda iyo u sii keentay waxay ahayd arrinta doorashooyinka soo socda ee 2021-2022 dhacaya oo dadku ay in badan soo hadal qaadeen oo qof waliba uu markaa ta'wiilka uu doono uu siinayay taas macnaheedu waxay ku soo ururaysaa shirkan asal uu yahay in la wada tashado dowlad goboleedyadu waa qaab dhismeed ka tirsan systemka federaalka wadanka iyo iyaga gaarkooba ka tashada waxaa kaloo wehelisa dowladda federaalka mas'uuliyiintooda iyo dowlad goboleedyada laftirkooda talada ka dhaxaysa ee u baahan mararka qaarkood qaraaraadka siyaasiga ee la gaadhayay inay noqdaan mid laga wada tashado la isu yimaado la isla qaato meesha ay la isleeyahay way gaari kartaa dadka Soomaaliyeed marka waayeel waxaa la yidhi hortiisa caano loogu barxaa haddii reerku ay caano yareeyaan ay gaari waayaan oo la yidhaahdo ha loogu daro biyaha lagu daro qofka waayeelkii uu garanaya caanahan in wax lagu daray laakiin qofka ilmaha yari inay cad yihiin buu arkaa waxaa laga yaabaa inuunan aad u sii garanin marka qofka waayeelka isagoo arka yaa lagu darayaa si uu ogaado in baraxii ku jiro dadku markaa shayga muhiimkii waxay tahay waxa ay qaadayaan iyo tallaabaday qaadayaan haddii barax lagu daray iyo haddii sidooda lagu bixinayaba inay noqoto mid u wada muuqata oo ay wada arkaan oo markaas aan keeni karaynin tuun iyo istuun iyo midna aan abuuri karayn waxaan rajaynayaa shirkan muhiimaddiisu inay tahay inay ka soo baxaan wax rasmiya oo doorashooyinka iyo siyaasadda iyo wax walba iyo wax dowlad goboleedyada ka dhaxeeya intaba saamayn ku yeelan doona ma laha iyaga dowlad goboleedyadu go'aanka gaadhista arrimo badan oo waddanka u yaalla laakiin waxay leeyihiin la tashi iyo inay talada iyaga iyo dowladda federaalka mas'uuliyiintooda ay ka dhaxayso goonina ayna u ahayn ayna doonaynin iyagu shaqo ayna iyagu lahayn inay qabtaan ay doonayaan inta iyagu xaqa u leeyihiin inay ku darsadaan taladooda taasina ay waddanka oo dhan horumar iyo guul gaarsiin karayso waxaa u baahan maanta culaysadana saaran waddanku inuu horey uga gudbo marxaladaha kolba lagu jiro waxaan u baahannahay waxyaalo badan baa inoo yaallay oo bilowgii dowladdan haddana laga hadlayey maantana taalla dastuurku uu ka mid yahay dhammaystirkiisa ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada in la fuliyo heshiisyadii horey loo soo gaadhay London Conference Muqdisho Baydhaba iyo qorshihii amniga qaranka waxaasoo dhani marka ay timaado inuu dhici waayo kulanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama dowlad goboleedyada laftirkoodu inay isu yimaadaan oo ay ka tashadaan waxa markaa hor yaalla waxaa lumaya oo baadayo kala fogaanaya wixii la rabay in la qabto ee la rabay inay waqtiyadaas qabsoomaan ama la iska weydiiyo waxaa nasiib darro noqonaysa heshiisyo badan oo horey loo soo gaadhay fulintooda inaan la isweydiinin oo aan la odhanin war waxa halkaasay marayeen xaggay inoo marayeen maxaa ka qabsoomay maxay sababtu ay tahay waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay ka wada shaqayso kulligeed waddankani maanta midnimada iyo gacanta la isqabsaday isku duubnidu galmudug waa tusaale idinku filan galmudug yaa tusaale idinku filan madaxweynaha senatarada iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo kuwa maamulkiisaba intay gacmaha isqabsadeen wareegga ay sameeyeen iyo maanta halkay shalay ka bilaabeen iyo maanta isku duubnida maanta ku shalay wax sheeganaya iyo mid kaleba maanta reer galmudug halkay isla gaadheen aan kulligeen gacmaha isqabsanno isku duubnaanno ninka dowladda federaalka joogay maanta wuxuu mudan yahay in lagu ixtiraamo shaqada uu hayo isaguna uu garto cidda talada leh iyo waxa ka dhaxeeya ka maanta bannaanka ka joogaana uu garto maanta ninka mas'uuliyadda federaalka joogay xilka saaran iyo culayska uu ogaado isaguna berri hadduu kursigaas tago si ay ugu
sahlanaato inuu shaqadaa lala qabto inuu isaguna isku dayo qofka walaalkii ee markaa shaqada ku jira inuu wax la qabto oo uu la saxo oo uu gacanta la isu duubto ma aha ta federaalka keliya ibanta isteydyada oo ay ahayd maamulada ilaa heer council iyo saddexda leebal ee dowladnimo in loo dhowaado oo mid heer councilkii iyo degmooyinkii iyo tii dhexe ee stateka iyo dowladdii dhexe ee sare ee waddankuu lahaa inay intooda noqdaan wax isku xidhan oo ay tahay waxa inugu keenay federaalkan iyo culayskan inaan hadda dowladnimadeenni dib u soo aduudno dagaalkii sukeeye iyo burburkii iyo kala tegistii balin intii isqaadan karta iyo sida dastuurka u soo qorayba sidaa loo socdo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa reer galmudug mar labaad iyo mar saddexaad waxaana rajaynayaa saaxiibbaday inuuna shirkaan noqonin kii ugu dambeeyey ee shirar badan aan yeelanno la isku xidhnaado la wada shaqeeyo waxa ka soo baxayana ay noqoto shirkani gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ku saabsan inaan wax cad oo aan iska weydiinno annaga iyo dowladda federaalka iyo cidday naga dhexaysaba talada naga dhexayn karta la isweydiiyo oo la isla qaato waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa dadaal kasta oo dadka isu wadi karaya oo amniga looga wada shaqayn karayo oo qof kasta oo siyaasi uu maanta aad uga fakaraya ama ha noqdeen madaxda xukuumadda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqdeen ama madasha xisbiyada qaran iyo axsaabta kale iyo qof kastoo caaqil oo siyaasi ha noqdeene qof waliba inuu ka fakero oo ka shaqeeyo isku haynta waddankan xasiloonidiisa sida aan intii ta'wiil aan jirin uu u dhaco dhibaato waddankan uga dhici lahayd qof waliba inta la gudboon inuu ka shaqeeyo sida ugu habboon ee loo gaari karayo waxaan rajaynayaa on ilaahayna ka baryayaa shirkaani inuu dhali doono kuwo kale oo ku xiga oo ka fiican oo iyaguna kulli ay isla soo wada saaraan kuwa federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyaduba wax maanta dadku ay ku qancayaan oo u muuqata oo aragti siyaasadeed keenaysa oo walaaca iyo tuhunka dadka ku jiraay ay uga baxaan reer galmudug guul baan idiin rajaynayaa gacmahaad saysataan wada waxaan aad uga warqabaa reer galmudug waa deeqsiyo horta hadda sooriyada iyo geela la uruurinayo iyo xoolaha la keenayo waxaan u malay inaan diyaaradaha ku qaadan doono oo ay ka badan doonto inta